maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ayaa muddo 3 sano iyo badh ah waxa ay ku sii xukuntay Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon oo hore ay maxkamadda gobolka Maroodijeex ay ugu xukuntay muddo 3 sano iyo badh ah iyadoo ay inta badan xeer ilaalintu ku soo ogtay kiis ah in uu dambi ka galay dugsiga Abaarso iyo waliba sida ay sheegtay xukuumadda Somaliland. haddaba Cabdimaalig Masaaka markii la keenay maxkamadda waxa uu noo sheegay in qaab jujuuba loo soo kaxeeyay iyadoo aan wax ogeysiis hore la siin isla markaana aanay ka warqabin qareenkiisii gaarka ahaa aanay jirinna cid la socotay oo wax ka og xukunka dambe ee saaka lagu riday. xukunka sidoo sheegay waxa uu muuqday mid garsooraha amar uu la soo siiyay in uu 3 sano iyo badhkii hore ku sii xukumo wariye Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. wariye Cabdiqani Xasan Cilmi dawlad oo si gaar ah ula socday kiiska Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon ayaa waxa uu tilmaamay in cadaalad darro badan ay ka muuqatay qaabka ay maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodijeex ugu raacday xukunkii hore loogu riday wariye Cabdimaalig Sheekh Muuse Coldoon. Cabdiqani bal waxaan doonayaa marka koobaad ee saaka sida xuquuq dhacin adiga warantid. nuuruddin aad iyo aad baad mahadsan tahay. saaka subaxnimadii ciidanka asluubtu waxay ugu tageen Cabdimaalig qolka xabsiga ka deganaa magaalada Hargeysa kabacdi waa la soo kaxeeyay waxa la keenay maxkamaddii rafcaanka ee dacwadiisu ay ka socotay wax ogeysiisa oo hore oo lama siinin in saaka xukunkiisii lagu dhawaaqi doono lama wargelinin qareenkiisii garsoorihii ayaa ku dhawaaqay xukunkii rafcaanka kaas oo sheegay inuu ayiday 3 sano iyo badhkii maxkamadda gobolka Maroodijeex ay hore ugu xukuntay. marka Cabdimaalig saaka qareenkiisii keli ahaa ee Jamaal Mandela arrinkiisa lama ogeysiin waxaanu ogsoonayn 4 qareen buu lahaa. qareenadiisa waxaa ka mid ahaa qareen Mubaarak Cabdi oo dhowaan sheegay inuu joojiyay shaqadii uu ka hayay garsoorka Somaliland kadib markii uu sheegay Mubaarak in Somaliland aan sharciga aanay ixtiraamin oo aan lagaga shaqaynin. waxaa iyaguna dacwadan aan ka soo qayb gelin muddadii ay socotay 2 qareen ee ururka saxaafadda Somaliland Soldier ay hore ugu qabteen ee qareen Maxamed Abakor iyo qareenkii kale ee Maxamed Cabdiraxmaan oo iyaguna aan iman taas oo iyadana loo sababaynayo khilaafka shakhsiga ee ka dhaxeeyay Maxamed Cabdi Jaamac Xuuto gudoomiyaha Soldier iyo Suxufi Cabdimaalig Muuse Coldoon oo iyada qudheedana mar hore dhaxdhaxaadin aan ka sameynay oo aniguba aan ka sameeyay oo labadooda aan afgarad u sameeyay oo ku heshiisiyay u dhawaan dib uga baxay gudoomiye Xuuto kadib markii safar ku tagay magaalada London oo wariye Cabdi Xaafid oo Universal TV uu waraysi siiyay oo dib weerar uu afka ugu geystay Cabdimaalig Muuse Coldoon. marka saaka qareenadiisina ma iman xukunkiina saas u dib ugu dhacay. Cabdiqani marka laga tago midaas Soldier iyo sida aanay u imanin maxay waxaan ku dhacayaan baad isleedahay in Cabdimaalig wuxuu sheegay in la soo jujuubay oo si bila ogeysiisa lagu soo kaxeeyay kadibna xukunka lagu riday iyadoo qolka maxkamadda xitaa aan cid kale joogin oo garsooraha iyo 2 nin oo kale ay joogaan iyo isaga maxay sidan u dhacaysaa kula Cabdimaalig xukunka maanta rajo wanaagsan kama qabin marka hore dadka arintan u dhuun dalooleen rajo fiican kama muujinayn taasina waxay soo ifbaxday kadib maalintii hore markii dacwadan dhageysigeedii maxkamadda rafcaanka ay ka furantay qaabkii uu u dhaqmayay garsooruhu ee uu cadaadiska ku saaray qareenadii u difaacayay Cabdimaalig Muuse Coldoon. marka rajo fara badan marka horeba ma jirin inuu helayo xukun cadaalada. garsoorahan maalintii hore waxa lagu eedeeyay inaanu xataa aqoon u lahayn waxaan lagu eedeynayay Cabdimaalig ee Facebooka oo marka horeba nidaam sharci aanu Somaliland aanay ka dhiganin dacwadaha Facebooka sida lagu galayo. sidaa markay tahay maxkamaddii rafcaankana ku raacday xukunkii hore ee maxkamadda gobolka Maroodijeex ee Cabdimaalig ku riday ee ahaa 3 sano iyo badhka maxaa dambe u furan ee uu yeeli karaa Cabdimaalig ambiil baa u furan inuu maxkamadda sare ee Somaliland u qaato laakiin waxaan jeclahay in halkan dadka ka ogeysiyo Cabdimaalig waxa uu ka aamin baxay nidaamka garsoorka iyo cadaaladda ee Somaliland wax ambiilana uma qaadanayo maxkamadda sare iyo maxkamadaha dambe ee awoodda u leeyahay kiiskiisa dhageystaan si rasmi ah ayuu uga aamin baxay. Cabdimaalig waxaan jeelka ku booqday isniintii dhaweyd uu ii sheegay inaanu ambiil dambe u qaadan doonin maxkamadda sare haddii maanta
uu tan cadaalad ka waayey maxkamadda rafeynka saaka xukunka ku riday marka cabdimaalig iminka jeelkii buu ku dhex jiraa alxamdulilah dadka jeelka kula xidhan wuu faa'iideeyaa luqadda carabigu baray diinta islaamka ayuu daraasaad fara badan uu dadka jeelka ku xidhan siiyey tafsiirka qur-aanka ayuu iminka baraa balse waxaan aad uga xumahay oo ka dabqanaya dhibaatada ka soo gaadhay hooyadii oo muddo fara badan inankeeda cadaalad u raadinaysay oo daba socotay dhibka ay tirsanayaan cabdimaalig muuse coldoon carruurtiisii oo aabbahood xabsiga uu ku jiro ka uu tirsanayso xaaskiisii oo saygeedii muddo intaa leeg uu xidhan yahay iyo ka faamilkiisu tirsanayaba waxaan iyagana hilmaami doonin dadka cabdimaalig uu caawin jiray iyo markaa dee madaxweyne muuse biix cabdi waxa u bannaan inuu cabdimaalig xorriyaddiisa u soo celiyo iyo inuu cafis u fidiyo intaba way u bannaan tahay se ismalihii madaxweynuhu taa wuu samaynayaa aniguna halkan maanta uga dalbi maayo oo cabdimaalig inta cafis madaxweynaha loo weydiinayo waxaa ka horraysaba inuu xukun cadaalada inuu garsoorka ka helo marka haddii kiina uu waayey aniga shakhsi ahaan anigu halkan uga dalbi maayo cabdimaaligna way u furan tahay inuu ambil u qaato maxkamadda sare se sidaan kuu sheegay waaba ka aamin baxay